su-aasha maanta nala soo weydiiyey ee aan si kooban uga jawaabayaa waxa weeye waa maxay Bible-ku ama kitaabka quduuska ahi waa maxay kitaabkan af Soomaaliga ku turjuman laakiin aan ahaan loo yaqaano Bible-ka ereygan Bible-ku wuxuu asalkiisa ka soo jeedaa afafka Greek-ga iyo Latin-ka macnihiisuna wax kale maaha laakiin waa kitaab kan oo run ahaantii magac ku haboon waayo Bible-ku waa kitaab loogu talagalay bini aadamka oo dhan waqti kasta ha joogeene waana kitaab aanu jirin mid la midahi Bible-ku isagoo hal buuga ama hal kitaaba ayuu haddana isagu wuxuu yahay kasii kooban yahay ama lagu tilmaami karaa library waayo wuxuu ka kooban yahay 66 buug oo kale oo Bible-ka uu ka kooban yahay ama haddii aan si ay Soomaalidu fahmayso u iraahdo 66 suuradood inkastoo runtii aan la oran karin suurad oo ka sii buugga Bible-ka hal buugga Bible-ku uu ka ballaaran yahay suurad waayo sabuuradii oo dhan sidaad arki doontaan Nabi Daawud ayaa hal buug oo ka tirsan Bible-ka marka Bible-ka waxa ku jira buugaag ka hadlaya sharciga ama qaanuunka Ilaahay sida Tawreed Nabi Muuse oo shanta buug ee ugu horeeya Bible-ka waxa ku jira Tawreed Nabi Muuse laba buug oo kala yiraahdo Laawiyiintii iyo sharciga ku noqoshadiisa labada buugba waxay ku saabsan yihiin qaanuunkii Ilaahay siiyay reer Banu Israa'iil marka waxa jira buugaag ka hadlaya qaanuunkii Ilaahay waxa jira buugaag ka hadlaya taariikh ama qisooyin quruumo hore u jiray waxa kamida buugga la yiraahdo Esra waxa kamida falimaha rasuulada oo ka hadlaya ahdiga cusub xawaariintii ama xertii ugu horeysay Ciise Masiix waxa jira buugaag Bible-ka ka tirsan oo u dhigan qaab suugaaneed ama gabayeed waxa kamida buugga sabuurada wax kale ma aha laakiin waxa weeye qasiidooyin ilaahamaana oo Daawud intooda badan uu Ilaahay u tiriyay laakiin ay ku jiraan dhowr kale oo xataa Muuse uu wax ku leeyahay waxa kamida oo kale buugga la yiraahdo wacdiyihii waxa kamida buugga la yiraahdo Ayuub buug dhan oo Ayuub ka hadlaya iyo quruntiisa ayaa ku jira oo u dhigan sidii suugaan oo kale waxa ku jira buugaag qaabkoodu u dhigan yahay waxyi ama wax dhici doona sida ahdigii hore kitaabka Nabi Ishaaciya ama ahdiga cusub kitaabka Bible-ka ugu dambeeya ee muujintii oo ka hadlaya waxyaalaha dhici doona yoomal qiyaamaha intaan la gaadhin iyo soo noqoshada Ciise Masiix waxa ku jira buugaag ka hadlaya qiso nololeed dad ama sida injiiladoo kale injiilka sida Matayos u qoray iyo sida Yooxana u qoray Cibraaniyada kamida Titus baa kamida marka Bible-ku wuxuu ka kooban yahay intaas oo buug oo ka kala hadlaya mowduucyo kala duwan oo ku saabsan nolosha bini aadamka iyo sidii uu Ilaahay qiso kasta oo bini aadamka uu isticmaalay abtirsiin buu isticmaalay qisooyin buu isticmaalay abuuritaan nature buu isticmaalay wuxuu isticmaalay hab qasiido oo kala si uu inaga wax inoo fahansiiyo intaaba Bible-ku uu ka tirsan yahay qorayaasha Bible-ka hadaba bini aadan ahaan markaynu soo qaadano waxa weeye waxa qoray oo 40 qoraa oo kala duwan oo bini aadana waynu arki doonaa marka laga hadlayo la leeyahay way qoreen gadaal ayaan ka sharaxayaa waxaana Bible-ka la qorayay 1500 oo muddo gaaraysa sano qorayaasha waxa ku jira Bible-ka kuwa boqor ahaa kuwa nabi ahaa dad caadi ah oo Ilaahay isticmaalo ka hadalsiiyay oo qaarkood ay ahaayeen kalluumaysato qaarkood beeraley qaarkood digtooro qaarkood xoolo dhaqato intaasoo nooc oo qof oo Bible-ka qoray waxay haddana Bible-ku cajiib wuxuu ku yahay wuu iswada qaabilsan yahay oo hal mowduuc oo kaliya oo isla socda oo aan ka bayrin meeshii Ilaahay ugu talagalay ayuu Bible-ka muddada dheer baa la qoray waayo Bible-ku wuxuu ka tirsan yahay Tawreed Nabi Muuse ilaa Ciise Masiix iyo intuu dhacaysay marka
haddaba su-aasha Soomaalidu in badan ay isweydiiyaan oo runtii kutoon badan iyo been badan oo laga dhaadhiciyay waxa weeye Bible-ka sidee baa bini aadan u qoray miyaan Ilaahay qorin xataa qaar baa ku andacooda Bible-ka in la bedelo oo sanad kasta mid cusub la daabaco sheekadaas waxaan u bixiyay sheeka malcaamadeed ama waa sheeko iska blackmail ama been ku dhisan qoraaga kama dambayska ee Bible-ku waa Ilaahay laftiisa taasoo keentay inuu Bible-ku inkastoo intaasoo bini aadana ay ku taxalluqeen haddana uu ka hadlayo hal mawduuc inaanu isbedelin inuu iswada qaabilsan yahay inkastoo muddada dheer uu soo degayay ama la qorayay Masiixiyiintu ma aaminsana inuu Ilaahay buug samada ka soo tuuray ama soo dejiyay sida ay Soomaalidu yiraahdaan isagoo dhameystiran oo bini aadanka ku soo dhex tuuray dejin haddii laga hadlayo waxaa saxsan inuu Ilaahay si xidhiidh oo tartiib ah bini aadanka u isticmaalayay inay ereygiisa qoraan Ilaahay ayaa fikradda leh laakiinse bini aadanka ayaa qoray oo ku qoray erayadoodii ku qoray luqadahoodii isticmaalay erayadii ama iyagoo markay sharaxayaan waxyaalihii bi'adooda ka tirsanaa dhaqankii ay markaa joogeen Ilaahay anagu ma aaminsanin bini aadanka inuu robot ahaan u isticmaalo oo wax maskaxda ugu rido oo ay u soo saaraan sidii maca erayada laakiin haddaanu Masiixiinahay waxaan aaminsanahay inuu Ilaahay bini aadanka oo uu ka abuuray aragiisa oo uu karaameeyay uu ka qayb geliyo ilaa iyo haddana ka qayb geliyo inuu u isticmaalo inay shaqadiisa adduunkan oo ay ku jirto muujinta ereygiisa ay ka qayb qaataan oo ay qayb ka ahaadaan ereyga Ilaahay waxaa ku qoran qorniin kasta ahdiga cusub qorniin kasta ama kitaab kasta wuxuu ku ahaaday ruuxa Ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda canaanashada iyo hagaajinta iyo edbinta xagga xaqnimada erey kastoo Ilaahay soo dejiyay bilaa macna ugu ma qorna halkan waxbuu inoo sheegaya ama wax kasta mawduuc kasta ka hadlay ayaa Bible-ka bini aadanku waxay qoreen isla wixii uu Ilaahay doonayay inay iyagu qoraan maxsuulkii ama ka dhashayna waxa weeye ama natiijadii ka soo baxdayna waxa weeye erey Ilaahay oo sax rabbiga ereygiisu waa ereyo daahir ayaa ku qoran sabuurkii ahdiga cusub waxaa ku qoran wixii nabiyadiisii sheegeen weligood kuma ay imaan dadka doonistiisa laakiinse dad ruuxa quduuska waday ayaa xagga Ilaah kaga hadlay marka ruuxa quduuska Ilaahay laftiisa ayaa u muujinayay dadka hadduu doono riyo ugu muujinayay hadduu doono wuxuu ugu muujinayay fikirro qalbigooda gelinayay hadduu doono toos baa malaa'igula hadaysay marka laakiinse aakhirka Ilaahay bay ka timi wax kastaba qaybaha Bible-ku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood ahdigii hore iyo ahdiga cusub ahdigii hore haddii la soo gaabiyo waxaa la oran karaa wuxuu ku saabsan yahay quruun waa qiso ku saabsan quruun ahdiga cusubna wuxuu ku saabsan yahay waa qiso ku saabsan nin quruun uu Ilaahay u isticmaalay inuu nin ka soo dhex saaro si uu adduunka ugu soo diro ahdigii hore wuxuu qeexayaa aasaasankii iyo ilaalintii iyo dhowridii uu Ilaahay la jiray reer banu Israa'iil Ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu quruumaha oo adduunka oo dhan ku barakadayn doono Israa'iil quruumo badan baa jiray laakiin Ilaahay wuxuu doortay hal quruun inuu isticmaalo inuu ereyga Ilaahay dadkiisa ugu soo dhiibo kitaabka Tooreedda Nabi Muuse ee bilowgii cutubka 12aad waxaa ku qoran rabbigu wuxuu Abraham ku yimid Nabi Ibrahim intaan Ibrahim loo oran jiray Abraham baa loo oran jiray wuxuu ku yiri ka tag wadankaaga iyo xigaalkaaga iyo reerka aabaaba iyo oo dalka aan ku tusi doono u kac oo quruun weyn baan ka dhigi doonaa oo waan ku barakeeyn doonaa magacaagana waan weyneyn doonaa oo waxaad noqon doontaa barako Ilaahay qoys ayuu quruuntaas ka soo dhex saaray kaas oo ay barakadu adduunka oo dhan u soo mari doontay qoyskaas oo qoyskii boqor Daawud ama Nabi Daawud kitaabka sabuurada waxaa ku qoran ahdi baan la dhigtay kii aan doortay oo waxaan u dhaartay adoonkayga Daawud oo ku iri farcankaaga
weligayba waan sii adkayn doonaa oo carshigaaguna wuu dhisnaan doonaa tan iyo ab ka ab dabadeedna qoyskaas reer daa'uud ayaa waxaa loo ballan qaaday inuu ka dhalan doono ninkii lagu ballan qaaday inuu adduunyada barako u noqon doono kaasoo ah ciise masiix ahdiga cusub ahdigii hore waxaanu sheegnay inuu quruntaa ku socday oo ilaahay doortay si uu bini aadanka ugu isticmaalo inuu ereygiisa u soo dhiibo nebiyadoo dhan ka soo baxeen aakhirkana uu ciise masiix ka soo bixi doonay ahdiga cusub wuxuu ku saabsan yahay ninkii uu ilaahay ballan qaaday imaanshihiisa kaas oo magaciisu ahaa ciise kaas oo buuxinayay ama kaamilayay ballamadii ahdigii hore lagu sii bixiyey oo dhan maadaama uu isagu noolaa nolol bilaa dembiya oo uu u dhintay oo allabarihaan ugu dhintay inuu noqdo inuu dembiyada bini aadanka ka badbaadiyo dabadeedna uu dhimashadii ka sara kacay ilaa maantana uu inala jiro oo uu nool yahay marka ahdiga cusub marka baybalku labada qaybood ahdigii hore iyo ahdiga cusub buu ka kooban yahay waa maxay nuxurka baybalka nuxurka baybalka ama shakhsiga xudunta u ah baybalku waa ciise masiix kitaabka oo dhami run ahaantii isaga ayuu ku saabsan yahay oo isugu soo biyashubanaya ahdigii hore wuxuu ka sii waxyoonayaa oo sii sheegayaa imaanshihii iyo oo u sii gogol xaadhayaa imaanshihiisii adduunka ahdiga cusubna wuxuu qeexayaa imaanshihiisii iyo adeegiisii ama shaqadiisii badbaado ee uu keenay adduun uu dembi ka buuxo ciise ma aha nin taariikhi oo keliya ma aha nebi oo keliya isagu waxaanu aaminsanahay inuu yahay ereygii ilaahay ama kelimatullah oo jidh soo huwatay ilaahay iyo ereygiisuna waa isku mid imaanshihiisii ayaa dhacdada ugu muhiimsan ee taariikhda bini aadanka ilaahay laftiisa ayaanu aaminsannahay inuu jidh bini aadan ereygiisa u soo xidhay oo isaga oo bini aadana ina dhex yimi haddaba waa kuma ilaahan ereyga ilaahay waxaa ku qoran injiilka ereygiina ama kelimatullah ama ereygii jidh buu noqday wuuna ina dhex joogay waxaynuna aragnay ammaantiisii taasoo ahayd ammaantii tan u ekayd wiilka keliya ee aabbaha oo nimco iyo runka buuxa ciise masiix markii ay xertii weydiiyeen natus ilaahay ama aabbaha wuxuu ku yidhi ma intaas baan idinla joogay oo aynad i garanayn mid ka mid a xertiisa oo Filibus la odhan jiray Filibusow kii arkay wuxuu arkay aabbaha ama ilaahay sidee baad u leedahay aabbaha natus miyaadnan rumaysnayn inaan aabbaha ku jiro anigu aabbuhuna igu jiro ilaahay iyo anigu inaanu mid nahay oo aanu midnimo leenahay miyaadan rumaysnayn marka waxa weeye baybalka oo dhan waxaa xudun u ah sidii uu ilaahay ciise masiix ugu soo dirayey si uu bini aadanka mar labaad ugula yeesho heshiis maadaama aynu jannadii kaga soo baxnay aadankii koowaad marmar ciise masiix waxaa loo yeedhaa aadankii labaad waayo aadankii koowaad jannadu inaga soo saaray oo guddigeed maanta aynu dabadda ka joognaa aadanka labaad waxa weeye oo ciise masiixa wuxuu u yimi inuu ilaahay heshiis intuu ina dhex dhigo aynu ilaahay mar labaad jid ay uu raalli inagaga noqdo uu inoo furo dulmar gaaban oo ku saabsan waxa uu baybalku qorayo baybalku wuxuu qorayaa ilaahay inuu bilowgii nin abuuray ninkaasoo uu dhex dhigay adduun aan dembi lahayn ama meel janno ah laakiinse ninkii ilaahay wuu ku caasiyoobay ama bini aadankii nin iyo naag bay ahaayeen laakiin ninkaa mas-uul ah oo wuxuu ku guuldarsaystay inuu noqdo sidii uu ilaahay isaga ka rabay ilaahay adduunkii dembiga daraaddii habaar ayuu ku soo rogay ama wuu habaaray laakiinse wuxuu kaloo isla markiiba bilaabay qorshe uu bini aadanka iyo abuuritaankiisa kale ku badbaadinayo oo uu xidhiidhkii jabay dembiga daraaddii uu dib ugu hananayo oo uu ugu soo ceshanayo isagoo qorshihiisa badbaadinta ama bixinta ku socda ayuu ilaahay wuxuu doortay nebi ibraahim oo wuxuu intuu baabuloon uga yeedhay ayuu wuxuu ku yidhi u guur dhulka la yidhaahdo kancaan waa qiyaastii 2000 oo sano intaan ciise masiix iman ilaahay wuxuu ibraahim iyo wiilkiisii isxaaq iyo wiilkiisii kale ee yacquub oo markii dambe magaciisu israa'iil noqonayay ugu ballan qaaday inuu adduunka ku barakayn doono farcankooda reer binu israa'iil waxay ka guureen kancaan oo waxay u guureen masar
halkaas oo ay ku noqdeen quruun weyn. Baybalku wuxuu kaloo qisadiisu ku dhex jirtaa qiyaastii 1400 oo sano Ciise Masiix ka hor Ilaahay ayaa reer banu Israa'iil ka soo saaray ama ka soo xoreeyay addoonnimadii iyaga oo uu hogaamiye u yahay nebigii Ilaahay ee Muuse. dabadeedna wuxuu iyaga hanti ahaan u siiyey dhulka barakadaysan ee Kancaan. isaga oo nebi Muuse isticmaalaya ayuu Ilaahay reer banu Israa'iil wuxuu siiyey qaynuunadiisii oo wuxuu iyaga la galay ahdi. waxaan ka hadlaynaa Towreeddii. haddii ahdigaas oo ahaa haddii ay isaga adeecaan oo ay iska ilaaliyaan inaanay caabudin sanamyadii ay caabudi jireen quruumaha kale ee ku wareegsanay inuu Ilaahay iyaga dhinac kasta ka barakayn doono ruuxiyan iyo material ama maal ahaanba. laakiinse haddii ay ilaawaan Ilaahay oo ay ku caasiyaan oo ay raacaan sanamyada qolooyinka kale ku wareegsan Ilaahay wuxuu qoray ama iyaga u sheegay inuu iyaga halaagi doonay. aynu sii soconno Baybalku waxa weeye waa tallaabo qiyaastii 400 sano markaa kadib waqtigii boqor Daa'uud oo Muuse ka dambeeyay iyo wiilkiisii Suleymaan reer banu Israa'iil waxay noqdeen boqortooyo aad iyo aad u xoog badan oo weyn. Ilaahay wuxuu Daa'uud iyo Suleymaan ugu ballan qaaday in mid iyaga ka soo farcami doona uu noqon doono boqor waaraya. Suleymaan kadib boqortooyadii Israa'iil way kala qaybsantay. 10kii qabiil ee reer banu Israa'iil waxaa dhalay 12 wiil Yacquub oo markii dambe noqday Israa'iil. marka 10 qabiil oo kuwa ka tirsan oo waqooyiga deganaa waxay noqdeen boqortooyo ama wadan gaara waxaana loo bixiyay Israa'iil. 200 oo sano ayayna wadan la yiraahdo Israa'iil ahaayeen ka hor intaanu Ilaahay boqortooyada ciqaabin. waayo Ilaahay bay ka dheeraadeen waxay bilaabeen inay ku daydaan qolooyinkii kale ee gaalada ahaa ee sanamyada caabudi jiray. Ilaahay markuu reer banu Israa'iil ciqaabayo mar boqol ku saladi jiray. marka qolooyinka waxa lagu saladay oo ku soo duulay boqortooyadii u dhaweyd ee Assyria oo iyada qabsatay oo intay baabiyeen hatta qaar iyaga kamida u ka haystay wax la yiraahdo captivity ama la haystayaash ka dhigtay. labadii qabiil ee kale ee haray ee koonfurta ku noolaa ee reer banu Israa'iil waxay iyaguna wadan gooni noqdeen oo waxa la oran jiray Yuhuuda ama Juuda. iyaguna muddo intii aan wadankii qaybtii Israa'iil baabin muddo yar ka bacdi wax yar bay ka sii dambeeyeen. iyaga laftoodu Ilaahay bay ku caasiyoobeen. iyagana waxa ku soo duulay boqortooyo kale oo gobolka ka dhalatay oo la oran jiray Babylon taasoo qabsatay iyagana qiyaastii 600 oo sano Ciise ka hor. qiyaastii 70 sano markaa ka bacdi ayuu Ilaahay naxariistiisa daraadeed hadhaadigii reer banu Israa'iil ka hadhay ee la haystayaasha loo ka haystay ay dib ugu soo celiyay dhulkoodii. dabadeedna waxay caasimadoodii Jerusalem oo burburtay ay dib u dhisteen. marka qiyaastii sanadku ahaa 444 Ciise ka hor. mar kale ayay markaa Israa'iil quruun dib u noqotay. halkan buu marka ahdigii hore ku soo gabagaboobaya. waxaa jira markaa 400 oo sano oo u dhaxaysa nabigii ugu dambeeyay ee ahdigii hore iyo ahdiga cusub Ciise Masiix. waxaa la yiraahdaa 400 ee sano ee aamusnaanta. ahdiga cusub wuxuu bilaabmayaa 400 oo sano kadib wuxuuna ku bilaabmayaa dhalashadii iyo imaanshihii Ciise Masiix. Ciise Masiix oo wuxuu ahaa farcankii loogu ballan qaaday Ibraahim iyo Daawud oo kaamili doonay qorshihii uu Ilaahay bini'aadamka ku badbaadin doonay oo abuuritaankiisa dib ugu habeyn doonay oo ugu furi doonay wado ay mar labaad isaga heshiis kula noqdaan oo ay ugu yimaadaan. hore waxaynu soo sheegnay in aadan daraadii uu dambi adduunka ku soo galay oo jannadii hal nin aynu uga soo baxnay daraadii. hal nin oo Ciise Masiix ayuu marka Ilaahay mar labaad inoogu celinayaa jannadii oo xiriid inagula yeelanayaa oo raalli ahaansho
inoogu aynu kaga kasban karnaa marka walaalayaal si aaminaad leh oo adeecid leh ayuu ciise masiix adeegiisii adduunka ka hayay ama shaqadiisii u dhameeyay isagu wuxuu ahaa bilaa dembi alla barihaan ugu dhintay bini aadanka hal mar oo kama dambaysa dabadeedna dhimashadii ka soo sara kacay dhimashadii ciise ayaa aasaas u ah daba ahdiga cusub oo ilaahay dadka la dhigtay ilaahay ciise masiix ahdigii hore wuxuu ahaa dadka bini aadanka ah ilaahay wuxuu ku qaabili jiray alla bariyo xoolo la qalo dhiig la daadiyo ahdigii hore saas oo ahaa ahdiga cusub waxa weeye kama dambaysta bini aadanka ilaahay wuxuu kula galay ciise masiix dhimashadiisa alla barigii ahayd iyo sara kicidiisii dhammaan kuwa ciise masiix rumaysani waxay ka badbaadi doonaan dembiyadooda oo ilaahay baa raalli kaga noqonaya sidaas kadib markii ciise masiix sara kacay hertiisii ayuu diray wuxuuna u diray waxa la yidhaahdo shaqadii weyneyd ama ugu weyneyd ama great commission taas oo ay warka wanaagsan ee ku saabsan ereyadiisii noloshiisii iyo awoodiisii ama injiilka macnihiisu waa warka wanaagsan ee badbaadada ay ku gaadhsiinayaan adduunka oo dhan xertii hore ee ciise masiix haddaynu nahno waa xawaariyiintii meel kasta ayay tageen si ay warka wanaagsan ee ciise masiix iyo badbaadadiisa ugu faafiyaan adduunkii markaa ay ka tirsanaayeen waxay u socdaaleen wadamadii ku dhowaa gobolka aasiyada yar waxay tageen Greega waxay kaloo tageen meelihii ay ka talinaysay boqortooyadii Roomaanka ee waqtigaa talin jirtay oo ay ku jirto xataa ilaa Yurub annagana maanta haddaanu masiixiyiin nahay weli amarkii ahaa taga oo quruumo oo dhan xer ka dhiga oo ku baabtiisa magaca aabaha magaca wiilka iyo magaca ruuxa quduuska oo bara inay adeecaan wax kasta oo aan idin baray ama idinku amray ahad amarka weyn oo ciise masiix dadka siiyay ama xertiisa anagoo xertiisaana maanta wuuna khuseeyaa oo waanu adeecnaa waana sababta aanu Soomaalida ula qaybsano ereyga Ilaahay injiilka oo aanu ugu yeedhno jidka xaqa haddaba walaalayaal ahdiga cusub waxa ugu dambeeya ama uu ku soo xidhmayaa kitaab la yiraahdo muujintii oo ah waxyi kitaab waxyi kaas oo sheegaya in yawmal qiyaamaha oo ciise masiix soo noqon doono si uu u xukumo adduunka oo uu u xukumo kuwa aan rumaysnayn kuwa rumaysanna ay jannadiisa u galaan oo uu si kama dambaysa markaa uga xoreeyo bini aadanka habaarka dembiga walaalayaal su'aasha aynu ka jawaabi doono ama kaga jawaabi doono darsigeena kale ee barnaamijyada su'aalaha iyo jawaabaha waxaynu ku sifaafahanaynaa mawduucaynu in yar halkan kaga hadalay oo ah yaa qoray Bible-ka marka walaalayaal noo imaada oo nala socda oo noo soo qora su'aalihiin caqligalka oo noogu soo qora email-ka ka muuqata shaashada ama muraayada ama Facebook message ahaan noogu soo qora waad maasantiin aad nala joogteen ilaahayna ha idin barakeeyo